أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، always markaan furaayo maaragtay intaasaan kusoo koobaa, يعني محاضرة أو كلامها ديرنا maaragtay. الحمد لله نشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. الحمد لله أمرتين مع wax badan ma sheegay ma garatay maaragtay ma hadii ilaahay iyo cashirka wada ka galeen insha Allah. cashirkeena maanta waa darsankii lixaad, qaybtiisa koowaad 2 3 4 5 6 todobadaas ka kooban yahay. webka wax ka baranayna sheega badanaa waa madinaarabic.com. youtube-ka ay la soo xiriiri kartaa, waxa la hal dhahaa maaragtay looga yarawan. my facebook waa tafsiirka quraanka. waxaad kaloo la soo xiriiri kartaa qolka quraanka kariimka aan ka mid ahay adminka. darsankeena haddaan bilaabano, cashirka maanta waa wax sahlan kooban. hore aan soo dhignay I think cashirka afraad meelahaas oo ahaa lesson 4 aan soo qaadanay waa 3 meelaha. for some reason wuxuu ku soo celiyay kullaba ujeedada ka jirto. waxaan raacayna annaka webkan sidoo wax noo barayo soo ma boodbooday. okay, there's a reason sababa jirto waa uu soo geliyay. maybe wax yar inaan ka faa'iideysan ama naqtiinkaas xataa waa faa'iido kelimada cusub. هذه aan ka baranayna maaragtay kelimadan horodhac, muqaddama waa horodhac, muqaddimatun waa horodhaca. هذه this way. هذه iyo هذا waa mu'annath iyo mudhakkar. هذا waa nin, هذه waa qof dumara. kan kalena waa ragga loo isticmaalaa, ama qasab maaha inuu qof naf ku jirto u ahaa. waxyaalo aan naf lahayn waa loo isticmaalaa. practice badan markaad samaysid maskaxdaada way baranaysaa waxay u isticmaalaysid. casharkan oo kusoo qaadan doona insha Allah. sii guda galno, yani sida ingiriiska camal maaha it buu iska isticmaalaya haddiina waxay qof nool ahayn. carabiga saas maaha, soomaaliga xataa I don't think inuu saas carabo kale waay maaragtay. wax loo isticmaalaa anigsaan garanaya maaragtay saas sida carabo kale maaragtay. it ma isticmaalno. waa si fasir doona hadaad fahmin, don't worry. هذه tani this is dabiibatun waa taqtarad oo qof dumar ah. taadaas baa ku cadaynayso. iyo haadaas hadduuna dhahan lahaa maxaan dhihi lahayn hada dabiibun. taas different farqiga u dhexeeya waa saas. okay, calaamadaas haada iyo taada ku fahmaysaa. horena soo qaadana casharada noocaan oo kale ah. هذه xaqiibatun tani waa boorso ama bag. xaqiibad aniga boorso aan garanaya maaragtay. هذه xaqiibatun. xaqiibatun qof nool maaha, waa boorso, laakiin waa dumar ah loo isticmaalaa oo kale. هذه xaqiibatun tani waa boorso, tani waa qof dumar ah. soomaaliga xataa kan waa boorso. I don't think in la dhaho saas. ani maskaxdayda saasay u taqaanaa sida carabtoo kale. haddii wax ka doonaa dareemaysa ila soo xiriir. haddii qofka luuqadda la fahmayn oo si u baran naxwihiisa uu soo xidhoon isku dhaxayaacayaan maaragtay. wax naxwo iyo grammar luuqadda ay leedahay waa inay jirtaa oo maaragtay fahamkeeda sugaayo. haddii kale ma kala cadaanayso, waxay isku dhaxayaacayaan. okay, al ardu waa dhulka ma garatay. waa waxaan ku sheegaya waxyaalaha aan maaragtay nafta lahayn oo
dumar iyo rag loo kala isticmaalayo kale. alardu dumar ahaana loo isticmaala. ardu waa dhulka. haadihi alardu baa laleeyahay, haadaa ardu uma la dhaho maaragtay. qidrun waa boot ama digsiga wax lagu kariyo. digsidan alyaddu waa gacanta. gacanta soomaali gacanka ma la dhahayo. maxay ka timid? waa qof dumara laga dhigay, wax dumara laga dhigay, qof ayaan dhihin. So mayla socotaan horta, ahob inay la socotaan erayo oo maaragtay aan naf lahayn oo dumara ay ka mid yihiin erayadan. alyaddu gacanta. ta'da waxaa la raayaa soomaaliga waxii dumara, wax noolna maaha. ingiriiska saas ma yidhahda, it bay dhahaan maaragta waxii aan ahayn qof nool la isticmaalin, nin inaag haddas ahayn. qidr sidoo kale digsida iyo dhulka waa muthana. waa ahab inay fahamtay xarafkan la xiriirka ah. xaraf jar horaa usoo dhiga isagana li. waa xarufta sida min iyo fi iyo li iyo oo keenaya jar hoos dhow ama kasrada. hore usoo qaadanay casharkii 4 iyo 3. li casharka waa dhamaaday. aruna maku daba qabanaa mise kul darsin kasta goonidiisa oo qaadanaa insha allah. casharka intaas ku dhamaaday. cashir koowaad lesankii 6. ilaahay nagu anfaco. intaas oga baxaya. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.